السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناكسن أصحابتين ميل كستوات جوكتان كسو دوادا برنامج كيني عيارها waxaanu ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta. haddii aad nagu cusub tahay daawada fadlan subscribe noo saar siina share gareys saaxiibadiinana la wadaaga dhammaantiiba. aanu ku bilownay kooxda Liverpool oo bedelka Sadio Mane ka doonayso kooxda Chelsea. wargeyska Daily Star ayaa xaqiijiyay in Liverpool ay muujisay xiisaha ay u qabto la soo saxiixashada xiddiga Chelsea ee Christian Pulisic maadaama ay filayaan inuu ka tago xiddigoodii Sadio Mane. ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Senegal ayaa ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican Liverpool tan iyo markii uu ka soo biiray Southampton 2016 waxaana uu qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Reds lixdii sano ee la soo dhaafay. laakiin haddii ay dhacdo in Sadio Mane uu go'aansado inuu u dhaqaaqo Bayern Munich, Jurgen Klopp waa inuu si degdeg u raadiyo bedelkiisa sida ay sheegeen wararkii ugu dambeeyay. Pulisic ayaa bartilmaameed dhab ah u ah tababaraha Jarmalka. Pulisic ayaa mar diiday inuu u dhaqaaqo Liverpool isagoo og inuu magac fiican ku sameeyay kooxda Borussia Dortmund isagoo xilligaas macallin u ah Klopp. laakiin tani markii uu ka tagay tababaraha haatan ee Liverpool garoonka Signal Iduna Park bishii May 2015 weli isma uusan ka hoos shaqaynin. kaliya dhowr sano kadib 2019 ayaa la sheegay in Liverpool ay rabto inay la soo wareegto Pulisic, laakiin hadda 3 sano kadib xiddiga reer Mareykanka ayaa heli kara fursad kale oo u dhaqaaqo garoonka Anfield waxaana la filayaa inuu door weyn ku yeesho shaxda Klopp. sidaas darteed waxaa laga yaabaa inuu ogolaado heshiiska Reds. Pulisic waxa uu Chelsea u ciyaaray 115 kulan waxaana uu dhaliyay 25 gool oo kaliya, taasi oo ah tiro yar marka loo eego tayadiisa. laakiin xiddiga waxa uu waayay inuu si joogto ah u qayb qaato shaxda kooxda tababara Thomas Tuchel. dhanka kale kooxda Arsenal ayaa shaaca ka qaaday in kabtankoodii Lacazette uu kooxda ka tagay. laacibkaas ayaa Arsenal u yimid 5 sano ka hor waxaana uu heshiiskiisa ku siman yahay xagaaga. wiilka reer Faransi ayaa tan iyo markii uu yimid sanadkii 2017 waxa uu kooxdaas u saftay 206 kulan dhammaan tartamada oo dhan halka uu u dhaliyay 71 gool. Arsenal ayaa u mahad celisay laacibka waxayna u rajeeyeen guul. wararka ayaa intaas ku daray in Lacazette uu haatan ku biiray kooxdiisii hore ee Lyon. sidoo kale fanaanada reer Colombia ee Shakira ayaa shaacisay inay kala tageen saygeedii Gerard Piqué oo muddo 12 sanadood ay isku xirnaayeen kadib markii ay soo baxeen fadeexado sheegay in difaaca Barcelona uu gabdho kala xiriir la sameeyay. toddobaadkan ayaa waxaa soo baxay warar in Gerard Piqué uu shukaansaday gabadh kale taasi oo ay ka war heshay Shakira oo isku dhacoodu uu sabab u noqday inuu laacibkan ka guuro guriga oo uu meel kala dego. maalmo hadal hayn ah kadib Shakira ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay inay kala tageen Gerard Piqué. intaas ayaan ku soo gabgabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi